ligan ay socotaa qabanqaabada xafladda qalin jabintooda sida uu sharaxayo gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda maakhir cabdiraxmaan jaamac cali cadaani oo u warramay warbaahinta dowladda Puntland. magacayga waa cabdiraxmaan jaamac cali marka ugu horeysa dadweynaha muuqaalka daawanaya aad baan u salaamayaa waxaan marka labaad u mahadnaqayaa TV Puntland oo igu soo booqday jaamacadda maakhir halkan aan kula wadaagayo warbixin kooban oo marxaladaha kala duwan ee jaamacadda maakhir ay soo martay iyadoo ay dhowdahay sanad guuradii 10aad ee jaamacadda maakhir oo ay sanad naga xigto jaamacadda maakhir waxay aasaasantay oo si rasmi ah loo hirgeliyay sanadii 2010kii iyadoo ay ka horeysay maxaan ku raahdaa shaqadeedii iyo maxaan ku raahdaa bilowgeedii hore ilaa 2009kii iyo soo socday laakiin jaamacadda maakhir sanadii 2010kii bishii 10aad ayay baran ka hirgashay oo si rasmi ah ay u bilaabatay sanadka hore upgrading iyo maxaan ku raahdaa koorsooyin aan ku bilownay way jireen kuliyadihii ugu horeeyay lagu bilaabo waxay ahaayeen education iyo IT markii dambe kuliyaduhu waa kordheen iminka waxay kala yihiin oo labada markaan ku bilaabo ICT information and communication technology education faculty of Islamic study and sharia faculty of business and public administration faculty of health science iyo faculty of science and technology kuliyaduhu waa inta xagga qalin jabinta ilaa sanadii 2014kii dufcada ka qalin jabinayay iyadoo haddeer bishan gudaheeda insha Allah aan sugayno in dufcadii lixaad ay qalin jabiso aanu ku jirno diyaar garowgii munaasabada xafladda qalin jabinta dufcadaha qalin jabiyay marka in yar ku noqdo waxa iyadana xusid mudan oo qaybta xusid mudan maadaama jaamacaddu ilaa haddeer ay bixiso koorsooyinka undergraduate-ka inay ardaydii ilaa 2014 qalin jabinayay oo bachelor degree waliba ka qaatay ay u doonteen waxbarasho dalka dabadiisa iyagoo master programkii soo dhameystay qaarna ay soo dhameysteen oo dalku soo qaarna ay haddeer u socoto kuwa kale aan maxaan ku raad dalka dabadiisa u bixin oo programka aan waxbarashada sii wadana ay shaqooyin ay heleen guulaha bay ka mid tahay ama waxyaabaha ma garanaysaa ay guulaha ka gaartay jaamacadda maakhir inta ka bacdi jaamacadda maakhir bilowgii hore ma ay haysan hanti ay leedahay waxaana hantidii ay ku shaqaysay ugu horeysay ugu deeqday ururka al-nasr oo urur haween ah halkaas oo ay isticmaalayeen sanada 2010kii ilaa laga gaaray 13kii sanad dugsiyeedka bilaabanayay oo bishii 9aad ahayd inta ka horeysay anagoo dhismahaas degan oo jaamacadda maakhir dhismahaas ururka uu leeyahay ay si bilaasha ugu shaqayso baa waxa dhinac socday barnaamij taariikhdiisii xusid mudan tahay oo ah in iska wax u qabso ee bulshada gobolka gudaha iyo dibadba ay isaga kaashadeen inay yeeshaan halkaasoo ay hanti ay leedahay xariga lagaga jaray sanada 2013kii bishii 9aad 7 Oktoobar ee sanadkii 2013kii waxa jaamacadda maakhir ay ku guuleysatay dhismo weyn oo ay ku baxayso $4 milyan oo dollarka Mareykanka waxaana deeqdan lacageed jaamacadda ugu deeqay dowladda waddanka Kuwait waxaana gacan ka geysay sidii jaamacadda maakhir ay u heli lahayd deeqdan $4 milyan gaaraysa dowladda Puntland oo iyadoo codsigaas u gudbisay dowladda waddanka Kuwait iyo aqoon-yahano ka soo jeeda gobolka Sanaag kuwaas oo iyagu gacan ka geystay sidii jaamacadda maakhir ay u heli lahayd deeqdan $4 milyan gaaraysa sida uu markale sharaxayo gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda maakhir cabdiraxmaan jaamac cali cadaani inta ka bacdi kuma joogsan dhismihii jaamacadda in inta ay maxaan ku raahdaa lagu joojiyo waxa dhinac socotay codsiyo iyo maxaan ku raahdaa in la helo agab ku filan facility-ga ay maxaan ku raahdaa dhismayaasha ay ka mid yihiin iyo wixii maxaan ku raahdaa ay ku shaqayn lahayd waxay sanadaasi soo baxday in ay jaamacadda maakhir iyadoo muddo laga soo shaqaynayay in ay heshay mashruuc $4 milyan ah oo isugu jira qalabayn iyo dhisme kuliyada kala duwan ah ay ku guuleysatay
tenderkii iyo maxaan ku rahdaa barnaamijyadii ka horeeyay kontraaga ay soo socdeen iyo maxaan ku rahdaa qiimeynadii ka horeeyay laakiin ay si rasmi ah shaqada ay u bilaabatay iyadoo shirkadda ACAC ay ku guuleystay masaarida ah sanadii 2015 bishii tobnaad baan dhismaha cusub aan iminka ku shaqaynayno oo bilowday wuxuuna gabagaboobay sanadii 2017 waxaa maxaan ku raahdaa deeqdaasi sida aan sheegay ay ka timi dowladda Kuwait iyadoo waliba amiirka Kuwait uu si khaasa uu deeqdaas u bixiyay Ahmed Jabir Al-Sabah deeqdaasi waa deeq Soomaaliyeed dabcan Soomaalida oo dhan baa loogu deeqay khaasatan Puntland iyadoo ay ka shaqeeyeen maxaan ku raahdaa iyadoo ay ka shaqeeyeen maxaan ku raahdaa mas'uuliyiin kala duwan oo uu ka mid yahay madaxweynihii dowladdii maxaan ku raahdaa Cabdiweli tii ka horreysay Faroole Cabdiraxmaan Faroole iyadoo ay jireen guddi BIU Puntland Implementation Unit oo uu ka mid ahaa maxaan ku raahdaa General Abdullahi Al-Kaljiir marka wafdiye noocaas ah oo Faysal Xawre ku jiro baa muddo arintaasi ka soo shaqeynayay halka hirgelintii markay gaadhay dowladda Puntland maxaan ku raahdaa doorkii ay ku lahayd bay si maxaan ku raahdaa waday oo dowladii kale ay maxaan ku raahdaa xilka la wareegtay ay halka ka sii anbaqaadeen marka hawshu way sii socotay oo mashruucaasi sida aad garan dadka qaar ay ka warhayaan dabcan wuxuu mataano ku ahaa mashruuca airportka Garowe marka waxa xariga si rasmi ah looga jaray 2018 oo uu ka jaray Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyadoo marka ay maxaan ku raahdaa jaamacaddu ay facility-ga fiican oo ka kooban dhismayaashii kuliyadaha qaybtii maamulka qaybtii masaajidka iyo cafeteria-da iyo maxaan ku raahdaa qaybahaasi laabkii guest house-kii ee martida maxaan ku raahdaa visit lectures-ka loogu talagalay qaybahaas oo dhan ay uu ka kooban yahay marka iyadana facility-ga quruxda badan oo muuqaalkiisi in badan aad aragteen baa maxaan ku raahdaa jaamacadda Maakhir ay hanatay kuna maxaan ku raahdaa shaqaynaysaa dabcan dhismahan cusub maxaan ku raahdaa waxaan filaynaa insha Allah inaan kaga faa'iideysano waxyaalo badan ama kuliyado kale oo markii hore aan suurtagal noo ahayn in aan xoojino kuliyada ahmiyada gaarka aan siinayno waa Faculty of Science and Technology iyadoo aan fahansanahay baahida loo qabi karo iyo waxtarka ay u yeelan karto dadka Soomaaliyeed waayo khayraadka badana aan leenahay waa khayraad maxaan ku raahdaa aan meelo badan laga helin haddii tahay badda haddii tahay xoolaha nool haddii tahay maxaan ku raahdaa beeraha maxaan ku raahdaa haddii tahay macdanta kala duwan intaas oo dhan waa wax khayraad maxaan ku raahdaa Soomaaliya ay maxaan ku raahdaa nasiib u leedahay khaasatan gobolka Sanaag waxa weeye in badan oo noocyada kala duwan aan soo xusay way leedahay marka ujeedooyinka ahdaafta waxa kamid ah in la soo saaro dad xirfad leh oo kamira dhaliya in baahidaasi sida looga faa'iideysan lahaa la helo waa qaybahaas ay ka kala duwan tahay veterinary science-ka agriculture-ka marine science-ka geology-ga iyadoo maxaan ku raahdaa qaybo badan oo kuwaas kamid ah aanay furnayn laakiin facility-gan cusub oo aan hadda ku jirno oo laabkii uu kamid yahay aan rabno inaan kaga faa'iideysano hadba midkaan u aragno in maxaan ku raahdaa la soo kordhin karo inaan soo kordhino ugu dambeyntiina gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Maakhir ayaa waxa uu mahad celiyay cid kasta oo gacan ka geysatay horumarka jaamacadda Maakhir iyadoo xilligan jaamacadda Maakhir ay ka soconayso diyaar garowga shirweynihii saddexaad ee jaamacadda Maakhir warbixinta waxaan ku soo gabagabeynayaa mahadnaq iyadoo aan u mahadnaqayo cid kasta haddii tahay shacab weyne iyo haddii tahay dowlad haasatan dowladda Puntland mar labaad haddii tahay maxaan ku raahdaa daljoog iyo qurba joog cid kasta oo wax ku darsatay jaamacadda Maakhir
maxaan ku rahdaa bilowgii ilaa waqti xaadirkan waxa weeye aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ka maamul ahaan jaamacadda maakhir annagoo maxaan ku rahdaa og sida taariikhda aan ku xusay xilliyada mashruuca uu bilowday iyo xilliyada uu soo gabagaboobay ee ka soo bilaabatay dowladdii ama xukuumaddii maxaan ku rahdaa doctor cabdiraxmaan maxamed faroole ay ku soo socotay ilaa doctor cabdiweli maxamed cali gaas oo xariga ka jaray iminka oo ay taagan tahay in maxaan ku rahdaa taageero ay hesho hadday tahay faysaskii kale hadday tahay maxaan ku rahdaa operationska iyo serviceka ay bixinayso in ay tayo iyo maxaan ku rahdaa halkii laga rabay la gaarsiiyo oo baahida ugu weyn weliba haddeer ay tahay waayo kuliyadahaas kuliyado dhaqaala yar u baahan ma aha marka waxaan support ka rajaynaynaa inay dowladdu halkan levelkan ay ku soo gaartay oo facekan ay la kulantay inuu dhismihii diyaar yahay walow dhismayaal kale ay maqan yihiin halkan haddaba waxaa la rabaa qorshihii ay dowladda halka uga ambaqaadi lahayd tayo walbana oo wax walba oo la rabo in tayo wanaagsan ay yeeshaan maalgelin u dhiganta ayay u baahan tahay marka waxaa looga fadhiyaa shacab weynaha iyo dowladda puntland iyo maxaan ku rahdaa dhammaan ummadda soomaaliyeed oo iyadu maxaan ku rahdaa aan ogahay inay cid kasta oo soomaali ah inay wax ku darsatay halkii baan uga ambaqaadaynaa jaamacaddan waa jaamacad maxaan ku rahdaa ummad soomaaliyeed ay leedahay marka intii aan ka tegey mahadnaqa waan ogahay dad badan oo muxtarimiina oo xusid mudan baa jira oo arrimaha ka soo shaqeeyey cumar xaaji cali isagoo si gaara baan ugu mahadnaqaynaa isagoo aad uga soo shaqeeyay barnaamijyada marka dowladda puntland madaxdeeda kala duwan cid kastoo ka shaqaysa hadday tahay wasaaradihii kala duwanaa madaxweynayaashii waa u mahadnaqaynaa dowladda cusubna doorkeedii waanu sugaynaa halkay ka ambaqaado halkaa waxa weeye marayso waa halkan haddeer ay maxaan ku rahdaa dowladda cusub la raba inay ka sii ambaqaado marka iyadana waa sugaynaa iyadoo maxaan ku rahdaa weliba wasiirku uu maxaan ku rahdaa waxbarashada ee dowladda puntland uu ahmiyad gaara uu siinayo halkanna aan filayna inuu nagala qayb qaato laba barnaamij ama laba munaasabadood oo waaweyn oo ay ka mid tahay xafladda qalinjibinta oo aan xusay iyo shirweynihii saddexaad oo jaamacadda maakhir ay yeelanayso wax badan intaa uu joogay wasiirka waxbarashada waa dareennay waana maxaan ku rahdaa ahmiyadda uu leeyahay iyo waxqabadkana waan dareennay waxaana ka filanaynaa wax intaa ka sii weyn marka dowladdan iyo intii hore waxay geysteen aad baa ugu mahadnaqaynaa waxaana ka cudur daaranayaa inaanan dadkaa wax kasta ku darsaday inaanan magacyadooda dhammaan sheegi karin iyadoo ay dhici karto inaan qaarna ka tago qaarna maxaan ku rahdaa aan xuso marka dhammaan si jumlo ah waxaan leeyahay ciddii wax yar iyo wax weynba ku darsatay gudo iyo dabad rag iyo dumar dhammaan waa mahadsantihiin xasan cismaan xasan dhageyri TV-ga idaacadda dowladda puntland Bron